barasabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi ayaa xariga ka jaray mashaariic dawladda hoose ee Gabiley ay fulisay sidoo kalena kormeer ku tagay mashaariic kale oo dhismahoodu socday isla markaasina farta laga qaaday waqti xaadirkani kormeerkaasi barasabka ayaa waxa ku wehelinayay duqa degmada Gabiley ahna gudoomiyaha golaha deegaanka Maxamed Amiin Cumar Cabdi mashaariicdan xariga laga jaray oo ay kamid ahaayeen dhismaha qaybta degdega ah ee isbitaalka guud ee Gabiley sidoo kale waxa xariga laga jaray qaybta hooyada iyo dhalaanka waxa sidoo kale maamulka Gabiley kormeer indheena ku soo mareen dhismaha deel weyn oo lagu wareejinayo xabaalaha qadiimiga ah ee Gabiley waxaan maanta xariga ka jaraynaa qayb cusub oo loo sameeyay umulaha waxa weeyaan waa qayb muhiim ah oo runtii ugu baahnaa sida ay sheegtay caasha ugu baahnaa MCH-ku qaybtan waxa maalgelisay dawladda hoose ee degmada Gabiley waan ku amaanayaa mar labaad waxqabadka ay ka wado dawladda hoose degmada Gabiley goobaha bulshada loogu adeegiyo sida dhakhtarada MCH-yada goobaha waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa meeyar ku xigeenka golaha deegaanka waxaan leeyahay halka ka sii wada waxqabadka aad ka wadaan gobolka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saala sheegay maanta waxaanu xariga ka jiranay qaybta gargaarka degdega ee ku soo kordhinay isbitaalkan guud ee gobolka Gabiley oo runtii ahayd baahi taagan oo aad iyo aad dadku u dareemayeen isbitaalkuna oo baahi weyn u qabay sida uu doctorka agaasimuhu ka dhawaajiyay inta badan waxa Gabiley ku badan shilalka gawaarida maadaama jid halbowliyu maro oo isku xidhay dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya sidoo kale gobolada galbeedka iyo waqooyiga galbeedka iyo bariga oo socodku ku badayay sida daraadeed inta badan gargaarka degdega waa laga maarmaan markaanu aragnay baahida qaybta gargaarka degdega ee isbitaalkan ayuu golaha deegaanka runtii gartay in la ballaariyo oo dhismo cusub loo sameeyo dhismaha cusub ee 6 qol iyo stoorka ka kooban runtii gudoomiye waxa xusid mudan qaybtan aanu dhisnay waxyaalaha waxa weey dawladda hoose awoodda saartay ee baahiyaha asaasiga ah bay ka mid tahay waxa sidoo kale aynu xariga ka jari doonaa qaybta dhalmada ku kordhinay iyaduna xanaanada hooyada iyo dhalaanka ee magaalada Gabiley oo runtii iyadana baahi weyn loo qabay halkaasoo hooyooyinku ay aad ugu xidhan yihiin oo wixii adeeg caafimaad badanka loogu qabto balse aanay lahayn qaybta dhalmada hooyada iyo xanaanada ku xidhan maalinta u dambeysay dhalmada taaganta ay ku kalifaysa in xanaanadii ka tagto markaas si taasina ay suuragal u noqoto iyadana waanu u dhisnay qaybtii dhalmada oo maanta iyadana furi doona insha Allah waxa xusid mudan sidoo kale deyrkii xabaalaha kormeer ku soo mari doona insha Allah waxaasiba waxaanu ka dhisnay waxa weey waa dakhligii ay dadku iska lahaayeen iyo cashuurtii dadka laga qaaday cidna inagama caawin waxaynu kaga jawaabanaa baahiyaheena dadka haysta waa cashuurtaynu dadka ka qaadanay aad baan ugu mahad celinayaa runtii howlwadeennada dawladda hoose iyo golaha deegaankaba waxaan noo farxada gudoomiyaha xariga ka jarto waanu kaaga mahad celinaa aad iyo aad bay maanta noogu farxad tahay in anagoo oo wada jirnaa maamulkii degmada heer gobol ee gobolka Gabiley in la furo xarun cusub oo emergency ah xarunta cusub oo ka kooban 6 qol iyo stoorkeegii xarunta cusub waxay wax tar weyn ka tahay waxaynu ognahay in gobolka Gabiley uu ku yaalo bartamaha maxay u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya wax marta wada aad u dheer oo shilka gawaaridu aad ugu badan yihiin sida daraadeed emergency-gii hore ee isbitaalka Gabiley 2 sariirood muu qaadi jirin maanta alxamdulillah saad arkaysan emergency-gan cusub wuxuu qaadayaa ilaa 10 sariirood waxaanu maamulka heer gobol iyo heer degmo ugu tala galeen inuu baahida gobolka ee shilalka gawaaridu keenaan amba xaaladda guud ee caafimaadka wax weyn ka qabto aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa maamulka degmada Gabiley gaar ahaan maayarka Maxamed Amiin Cumar iyo ku xigeenkiisa aad iyo aad u mahadsan yihiin waan u mahad celinayaa mar labaad waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba gobolka kan Gabiley.